muuqaalkan aad arkaysa waa gawaadhida yaryar ee loo yaqaano bajaajta iyo weliba marka ay dadweynaha reer Burco la kaftamayaan ay yaqaanaan shaqo-saamade waxaana ay maalmihii u dambeeyay ku soo badanayeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo qaar ka mid ah wadayaasha basaska yaryar ee magaalada Burco ay cabasho xoogan ka muujiyeen isla markaana ay sheegeen inay markasta si talantaaliya ay wadada u soo gali karto isla markaana aad ka bixi kartid bay dhahan inaad turiska ku dhafatid sidoo kalena waxa ay tigtani meesha ka saartay kaarloonyaalayaashii yaryar ee ka dhex adeegan jiray gudaha magaalada Burco taasoo iyagu u reeri jiray dadweynaha adeegyada raashinka ah ee ay ka iibsadaan dukaamada sidoo kalena waxaad arkaysaa iyadoo gawaadhidii markatuyada ahaa ee ka dhex shaqayn jiray gudaha magaalada Burco ay iyaduna meesha ka saartay inay gawaadhidaasi ka shaqeeyaan maadaama ay tani tahay kaliya ee adeegta dadka ku dhaqan magaalada Burco qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay kan mid ka mid ah odayaasha magaalada Burco oo sharaxaya asbaabta uu kaliftay inuu isla nacay magaalada Burco iyo tigta bilihii u dambeeyay waxa isbitaalka gudaha magaalada Burco ku soo badanayay dhaawacyada iyo shilalka ka soo gaadha dadka rayidka ah tigta soo ay ciidamada taraafikada ee wadooyinka ay markasta ku hawshan yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen isla markaana ay ugu xakameyn lahaayeen ilaalinta wadooyinka ana lagu sababeeyaa inay ka dhalato taasi wadayaasha tigta oo aan iyagu fikrad fiican u haysan isla markaana sharci iyo qaanuun u lahayn wadida iyo sharciyada laamiga ee Somaliland Absaaq Faarax Abdullaahi Burco online Burco